ayaxa ayaa muddooyinkii u dambeeyey farabaas ku hayay deegaano badan oo Soomaalidu degto saameyn weynna waxa uu ku yeeshay inuu nabad guuriyo beeraha iyo baadka dadka ku nool deegaanada miyiga ayaa dagaal la galay ayaxa si ay u kiciyaan dhulka ku habsaday kuwanina waa qaar ka mid ah dadkaasi oo rasaas nool adeegsanaya inta badan wadamo kamida dunida ayaa laga isticmaalaa cunista ayaxa halkani waa goob kamida suuqyada waaweyn ee magaalada Nairobi ee wadanka Kenya waxaana lagu iibinayaa ayaxa taas oo ay dadku si xawli ah u iibsanayaan halkani aan ku suganahay waa magaalada Burco ee xarunta gobolka Togdheer waana goobaha uu faraha baas ku hayay ayaxu taa bedelkeeda waxaan la kulmay dad si joogto ah oo isticmaalaya cunista ayaxa waxaan ka waraystay sida ay u arkaan cunistiisa maadaama aan hore looga baran Soomaalida cunista ayaxa waxaan u arkaa run ahaan Soomaalidu horta markii hore fikir qaldan ayay ka qabtay oo waxyeeladiisa uun bay dareemi jireen hadda laakiin waxa la ogaaday baalkii inuu manaafacaad fara badan leeyahay saddexda waqti inaad cuni karto waxa weeyaan xanuuno badan oo dhiig karka iyo macaamku ka mid yahay ayuu ka dawiyay waqti inta leeg badan imika haweeneyda cunitaankiisa weydii imika muddo waxaan waday 6 bilood meelahaas ah waxa weeyaan maca energy-gii uu soo noqday 15 jir baad dib u noqday ninkii weynaa marka waxyaabaha aad dareentay isbedelada aad dareentay intaad ayaxa cunaysid maxaa kamid ah waxa kamid ah markii hore tabcaan fara badan daal waxyaabo noocaas ah ayaan dareemi jiray imika fudayd baan dareemay shantaas waxnaan boodaya shaqooyinkayga kaleersan wuxuu qabsaday inuu imika hilibkan aynu qarano iyo kalluunka oo kale inuu la mid yahay ama ka wanaagsan yahayba waxa weeyaan markaa dadku inay ogaadaan inuu manaafacaad badan leeyahay oo hoos u eegaan ayaan oran lahaa oo ay isticmaalaan ayaxa waxa weeye waa cayayaan de waxa weeye baaleeya oo waxa weeye duulaya marka aad soo qabanayso hawl inta leeg ba ka gasha waxa weeyaan hawshiisu ma badna asaahate kulli wax ka shaqo kasto la qabanaya hawl bay leedahay marka run ahaan markuu ogaaday imika in isagii laftiisii la isticmaalayo hawl badan baa imika naga gaadhaa ayaamihii dambe oo wuxuu ogaaday inaanu de isagii cunanaba bulshada fariinta aad u diraysaa maxay tahay fariinta aan u dirayaa waxay tahay burca run ahaan may aqoon iyo Somaliland toona cunistiisa markii hore hasa ahaatee waa kuwaasoo waan cunaynaa way arkayaan waxaan oran lahaa maca hoteelada lagu soo diro dalabka cuntooyinka caadiga ah ee la iibinayo ha lagu soo diro waayo manaafacaad badan iyo dawooyin badan buu leeyahay marka dadku ha u soo jeestaan baan leeyahay bal ha tijaabiyaan aan la ogaadeen waxaan leeyahay cunista ayaxa la bilaabo intii hore cuntayna cunto cidii uu waarsan yahayna ha bilowdo daawooyinkiisa badan yaan wax dhib yeelay loo arkin de ka argos ahaan qariyaan cunane daawaha laga baaro niyada xulwa niyada loo sidaayo hal cuno waxyaan xalaala waxyaan la cuni karo oo de xalaala xuleena la mid ah waanu qabqabanay baa lagu muuriyay wala qabqabtay hore loo isticmaali jiray waa tan la shiray horteedu yaalay marka waana de khayraadka dalku kamid yahay waa cunto xalaal ah oo bireysan yahay sida kalluunkeena oo kale marka dadka waxaan u sheegaynaa dhibaatadiisa nimanka markaan qabqabanay maanta galigii dambe wuu kacay oo haygii baalkiiba wuxuu tagay sabca samawaad ku tagay markuu ogaaday la qabqabsanayo la cunayaba qaarna bahala yaryar iyo cayayaanka wii loogu talagay bisada weerareen annagina aanu qabqabsanay shiilay warkii inuu dab galay malaa dee dhacagiisa u sawray wuu kacay oo baalkii wuxuu tagay hawada labaad buu galay imika xabadiba duulaysa wadanka marka dadka waxaan u sheegaynaa xitaa si dhibaatadiisa ay idinka yaraato ama idinka fogaado ama khayraadkiisa iyo nafaqaadkiisa iyo dawooyinkan la sheegaya awlo kulantaan qabqabsadoo reer walba inta agtiisa joogta ama duulaysa ha ku kiciyo ciyaalkii dumarku mid iyo bac lagu qabsado magaalada Burco ee xarunta gobolka Togdheer waxay noqonaysaa magaaladii labaad ee Soomaali degto oo lagu soo bandhigo cunista ayaxa iyadoo hore looga arkay magaalada Cadaado ee xarunta gobolka Galgaduud ee wadanka Soomaaliya والله يسوى يستبارك كيف كيسي ودي سينا وعمري من داوي في هرب وكل عين ما دو وعن كل شيء سوبر كيسا كدر وعبد السلام أحمد عود عبد الشرمني ورك ساهن تي في برعو